muuqaalka maanta aan duubay waa self care routine. Djibouti ayaan joogaa imkaan la hadlayo. markastaan Djibouti imaado waxaan ku dadaalaa intaan aday tahay nafteeda horta daryeelka nafteeda aday tahay intaan markasta coiffeurka tago waa ka faa'iideysto coiffeurku waa iska raqiista Djibouti markaad adigu kuleba saa raqiis ma aha hadana laakiin Canada oo kale coiffeur maalin kasta ma tagi karo markaas intaan Djibouti joogo markastaan ka faa'iideystaa intaan nafteeda aan daryeelo oo timahayga coiffeurkan ku sameeyo iyo wax oo dhan aan u baahan yahay markaas maanta waxaan duubayaa coiffeurkan aan joogo coiffeurkan waxa la yiraahdaa Beauty by Sophie Salon BS Salon gabar yar ayaa masha Allah mar dhow furtay oo iyadu waxay ku bilowday makeup artist weeyaan makeupkay ku bilowday waad arki doontiin before and after maanta makeupkayga waan sameynayaa markaas wax oo dhan aan sameyn doonaa ayaan duubayaa coiffeurka horta waxay iga cajabiyay sharaxaada beautiful waxaana ka sii helana service oo dhan ay meesha sameynayo imika hadii aan u baahanyahay timaha la sameeyo xaggan ayaan ku sameynayaa wajiga xaggan ayaan ku sameynayaa massage xaggan ayaan ku sameynayaa xitaa massage madaxa makeup na way sameysaa deynta iyadaaba makeup artist ka sameynaysa maxay kale pedicure lugaha cidiyaha wax oo dhan u baahantiin adaa gabadhaati this is the place to come inshallah waxaan rajeynayaa inta ka faa'iideysan doontiin intaana iloobin maanta waxaan sameynayaa timahayga wajigayga lugaha iyo makeup na marsanaya inala socda kan walaalayaal treatment-ka madaxa marinayo gabadha noo sheegay waxa ku jira xagan si noogu sheegana af Soomaaliyan ku bedeli Là on a mis de soins et c'est max de traitement naturel. OK, et ça c'est le poudre naturel, plusieurs poudres, il y a le poudre qui démêle et pour le pouce, pour le hydratant et tout. Et ça, c'est le vitamine qui fait pousser. Et ça fait un peu lisse, arrondisse les cheveux. Et ça aussi, c'est le B5. Il est bien pour les cheveux. C'est hydratant. Ça, c'est plusieurs huiles qui est mélangée. Et ça hydrate vraiment le cheveu. Il est trop bien. Et ça, c'est un mélange de poudre et aussi d'avocado et de trucs pareils. Et il est bien pour les cheveux. On mélange tout ça pour hydrater, démêler et tout. Et pour le pouce aussi, pour le chute. Et tout c'est naturel qu'on fait pour le soin de cheveux et tout. Marhaba. So kuwa Soomaaliga ku hadla kani waxa weeyaan produit maskigi madaxa ee déjà mélangé kuwana waxa weeyaan pudro oo kala duwan oo timaha haday daadanayaan hadii xitaa xubta iyo timaha lafteedu ugu soo celinaysa iyo waxyaabo badan natural weeyaan tana waa saliidi horta saliida li mariya maha taasa horta saliida li mariya process waa saliida horta waan tusi lahaa laakiin timahayga ma tusi karo saliida marka adana waa timahayga waa la huriyaa and then après-na waxa li marinaya kana at the same time maskumina kani xagan ku melanjana xagan ma ku darasa so waa kaas so natural so inshallah waan ka warkeenana maanta waxaan joogaa salon oo Djibouti ku yaala hair salon uma aha laakiin waxyaabo badan ayaa lagu sameeyaa imikana la hadlayo soo warkasiin wajigayga mask ayaa marsan yahay timahayga mask marsan yahay cidiyahayga ayaa li sameynayaa xitaa makeup na waan sameysan doonaa waxa weeyaan markaas waa coiffeur waxoo dhan u baahan tahay ku sameynaya inanta furatay coiffeurka waxay ku bilowday intay horta sameyso makeup markaas makeup ko arki doontiin before and after muuqaalka intuu dhamaan
laakiin iminka dee way sii badisay serviceday samayso dee waxaa ka mid ah timaha wejiga xitaa pedicure-ka cidiyaha massage iyo waxyaabo badan marka maanta anu wejigaygaan samaynayaa timahayga lugaha iyo timahayga waan sheegay iyo makeup insha Allah inala saaco walaalayaal iminka waxaan marsanayaa makeupka waxaa injineer tusayaa before sidaan u eegahay and then after waan tusi doonaa insha Allah makeup waxay marinaysaa gabadha coiffeurka iska leh yes ما شاء الله ويقعد عصا ساعات يقعد علي لكن إن شاء الله مركز درع يوفر أنا حرته أيام صوتي عليه تسيبونها فرقة سنوات أول يوم كسنوات